jeclaayo ninka jooga galab qura kama jeelbaxaye jubbaland lahayo jehanabad bilyahiyo kadhijabad barwaaqa. taariikhda magaalada Kismaayo iyo ahmiyadda ay leedahay. magaalada Kismaayo waa dhul xeebeed ku yaala gobolka Jubbada Hoose ee dhaca koonfurta waddanka Soomaaliya. magaalada waa xarunta gobolka Jubbada Hoose isla markaana waa caasimadda saddexaad ee dalka. magaaladu waxay caasimadda dalka ee Muqdisho u jirtaa masaafo dhan 528 kiiloomitir waxaana magaalada horumara webiga Jubba oo magaalooyin dhowr ah ka mara koonfurta dalka. tan iyo 1991dii markii laga hayaamay magaalada Muqdisho dagaaladii sokeeye dhacay dartood ayaa Kismaayo waxay noqotay xarunta ganacsiga ee gobolada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo. dadka goboladaasi ku dhaqan oo uu ka dhaxeeyo xiriir istixgelin iyo wada shaqeyn ayaa abuuray jawi ganacsi oo dardar ku socda. magaalada Kismaayo waxay ka kooban tahay dhowr xaafadood oo waaweyn oo kala ah Calanley, Siinay, Faanoole, Farjano, Xagaryare iyo xaafadda shaqaalaha ama Via Afmadow. magaalada waxaa wada dega dad Soomaaliyeed inkastoo qaarkood ay xurguf horay u dhex martay, haddana waa dad inta badan si nabadgelyo ah ku wada degan ama wada nool, wixii dhex marana dhaqanka Soomaalida u celiya oo sidaasi ku heshiiya. magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ku yaal Soomaaliya oo si weyn looga dhoofiyo dhuxusha. kadib dhoofinta dhuxusha waxaa dadka reer guuraaga ah iyo dadka kale ee xoololeyda ahba soo food saartay dhibaatooyin isugu jiray in dhirtii la xaalufiyay iyo in ay la'yihiin meel ay harsadaan iyo waxa ay hoolahoodaba siiyaan. taasina waxa ay noqotay mid ka mid ah saameynta dhibaato tan ugu weyn dalka Soomaaliya kadib burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya. madaxweyne uu ka ahaa Allaha u naxariistay Generaal Mohamed Siyaad Bare. dadka magaaladaasi ku dhaqan dhaqaalo ahaan waa dad isku tiirsan oo xoogga saara ka faa'iideysiga wax soo saarka kheyraadka gobolkaasi sida beero falashada, xoolo dhaqashada iyo kalluumeysiga badda. ayadoo la ogyahay in geela ugu badan ee Soomaaliya laga leeyahay gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan agagaarka dhulka hawdka ah ee daaqsinka fiican leh. sidoo kale dadka magaaladaasi ganacsiga ayaa muhiimad gaar ah u leh. maamul ahaanna magaalada Kismaayo marka laga soo tago maamuladii Salaadiintii Zanzibar, gumeystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga, boqortooyadii Juuraan iyo dowladihii Soomaaliyeed ee dalka soo maray, ayaa haddana sanadihii dambe waxaa jiray dhowr maamul oo gacan ku haynta magaaladaasi isaga daba maray. maamuladaasi waxaa ka mid ahaa maxkamadihii Islaamiga, maamulkii dowladii ku meel gaarka xilligii Itoobiyaanka iyo maamuladii kala gedisnaa ee ay sameeyeen harakada Al-Shabaab markii ay Itoobiyaanku ka baxeen Soomaaliya kadib. hadda magaalada waxaa gacanta ku haya ciidamada maamulka Jubbaland iyo ciidamada Kenya. muhiimadda magaalada Kismaayo ay leedahay ee ay ku kasbatay inay tahay magaalo ku fiican ganacsiga, xoolo dhaqashada, beeraha, kalluumeysiga iyo inay tahay magaalo taariikh fog leh kasoko waxay kaloo magaalada ku fadhisaa ahmiyad istiraatiiji oo ballaaran, weliba marka laga hadlayo military ahaan iyo maamul ahaan intaba. dadka magaalada aadka u yaqaan militarigana aadka u garanaya ayaa sheegay inay magaaladu leedahay ahmiyad istiraatiijiyadeed military sababtoo ah bay leeyihiin magaaladu waa dhul xeebeed waana magaalo madaxda gobolka Jubbada Hoose. idii gacanta ku qabata waxa u sahlan inay halkaasi ka sii dareyso dhaqdhaqaaqyada ciidan ee magaalooyinka kale ee gobolka ka soconaya. magaaladu waxay leedahay dhowr xarun oo ciidamadu ay adeegsan karaan, dekada iyo garoonka dayuuradaha. taasina waxay sahlaysaa in si fudud sanadaha military looga soo dejiyo loogana raro isla markaana ciidamadu looga kala daabulo. magaaladu waxay leedahay ilo dhaqaale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha iyo dekada oo maamulkii gacanta ku haya ay kaga soo xaroonayso cashuuro hoggan. magaalada Kismaayo ayaa waxaa in muddo ah ka talinaya
ka talinayay ururka Al-Shabaab markii dambe laga saaray magaalada Kismaayo. Al-Shabaab waxaa magaalada Kismaayo ka saaray ciidamada AMISOM iyo ururka Ras Kamboni oo kaashanaya militariga Kenya. Kismaayo waa magaalo qurux badan markii loo fiiriyo galadaha Alle ku maneystay sida xeebta webiga Juba iyo wixii la mid ah. Inkastoo ay soo martay marxalado kala duwan, magaalada Kismaayo haddana waxay dhaawac la wadaagtaa dalka intiisa kale oo dagaalo sokeeye iyo burbur ay soo mareen. Walaal intaas ayaan ku soo koobaynaa taariikhda magaalada Kismaayo. Aad baad ugu mahadsan tahay daawashada videogan. qof waliba jeclaayo ninka jooga galab qura kama jeel baxaye Jubbaland lahayo jehanaba bilaahiyo kadhijabad barwaaqa qof waliba jeclaayo ninka jooga galab qura kama jeel baxaye Jubbaland lahayo